habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada caawa aan idin hayo waxaa ka mid ah Kenya oo 11 askari looga dilay qarax miino oo dhulka la geliyay deegaanka Dadaab. Turkiga weli dagaal xoogan ayuu ka wadaa waqooyiga Suuriya, kumanaan shacab ahna way qaxayaan. dalka Japan duufaan xoogan ayaa aafaysay, webiyaduna karkaarada ayay jabsadeen. gabar iyo wiil muddo wada socdayna aakhirkii way kala tageen. talow maxaa sababay? mudda wiil wada soconay marka wiilka 3 sano marka wada soconay ma kala hadnay arrimo dhexdeeda ah oo isku afgaroweynay kadib jacayl bay gabadhii ooda ka qaaday. agtaadaan ugu jeclaa inaan ifka joogo abid hayeshay may ahaan xilliyo adag bay wajahay qoraalka alla dhignaa isbuuca waxaa lahayn ayaan gaar noo ahayd isniintu markay baxday u xiisay ayaamahaas adoo tagay oo inacay astaa wacan baad ahayd adduunka qof baad ahayd aaminay oo aan jeclaa waxaasaa jacayl ah. barnaamijka waxaa soo saaray cabdiqaadir yuusuf cali, aniguna waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh. balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Kowsar Maxamed. mahadsanid catoosh. Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu kala baxo ciidamadiisa ku haray waqooyiga dalka Suuriya, iyadoo sii xoogeysanaya dagaalka ay wadaan ciidamada Turkiga ee ka dhanka ah Kurdiyiinta gacan saarka la leh Mareykanka. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa xaaladda hadda jirta ku tilmaamay mid aan la isku haleyn karin, wuxuuna sheegay in ciidamo gaaraya ilaa 1,000 ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo bixi doonaan deegaanka ay ciidamada Turkiga howlgalka ka wadaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu cambaareyn xoogan kala kulmay xoogagga Kurdiyiinta kadib go'aankiisii hore ee ahaa ee ciidamadaasi in laga soo saarayo Suuriya. Trump ayaa haatan boggiisa Twitterka ku soo qoray in caqligal ay tahay inuusan faragashan dagaalka haata socda. howlgalka ay wadaan ciidamada Turkiga ayaa galay maalintii 5aad, waxaana lagu soo warramayaa inay gaareen magaalada Dal Abyad oo ay bartilmaameedkoodu ugu muhiimsan yahay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ugu baaqday inuu si degdeg ah u joojiyo howlgalkaasi. gabar lagu magacaabo Brigid Kosgei oo u dhalatay dalka Kenya ayaa ku guuleysatay orodka dhinaca dumarka, waxaana jabisay rikoor cusub ee dunida oo dhan u yaalay 16 sano kadib. Brigid ayaa rikoorkan jabisay kadib markii ay oroday 2 saac 14 daqiiqo iyo 14 ilbiriqsi. tartankaasi oo ka socda magaalada Chicago ee waddanka Mareykanka. shalay oo Sabti ahayd, Eliud Kipchoge oo u dhashay isla dalka Kenya ayaa ku guuleystay tartanka orodka adduunka ee ka socda magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. wuxuu isna jabiyay rikoorkii u yaalay tartankan isagoona orday 2 saacadood 1 daqiiqo iyo 40 ilbiriqsi. tirada dadka ku dhintay duufaanta loogu magac daray Typhoon Hagibis oo ku dhufatay dalka Japan ayaa kor u dhaaftay 30 qof, halka tiro kalena la laayahay. duufaantaasi oo muddo 10 sano ah kadib ku dhufatay dalkaasi. shaqaalaha howlaha gurmadka ayaa caawa oo dhan sii wada doona howlaha samata bixinta, meelaha qaarna waxaa fatahaado sameeyay webiyada. in ka badan 100,000 oo ciidan iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa halkaasi ka wada howlaha samata bixinta. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa sidoo kale loo daadguriyay dalkaasi si ay dadaalka gurmadka ah uga qayb qaataan. ugu dambeynna ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhaawacmay madaafiic hubiyayaal ah oo lagu weeraray meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho. dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi waxaa ka mid ah shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo Amisom. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. sida ay ku andacoodeenna waxa ay sheegeen inay dileen dhowr qof oo ay ku jiraan dad ajnabi ah. wararkaanu ka helnay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 madfac lagu riday aaga xarunta qaramada midoobay Amisom iyo sidoo kale dhowr safaaradood oo halka ku yaala. wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa cambaareeyay weerarkaasi. waxaana inta inooga dhan warkii dunida. aad baad u maasantahay Kowsar. habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay. Kenya madaxa booliska waddankan Kenya ayaa sheegay in ciidamo boolis ah la geyn doono goobtii shalay gelinkii dambe lagu weeraray ciidamo ka tirsan booliska oo u tababaran sida militariga. ciidamadan ayaa lagu weeraray inta u dhaxaysa deegaanada Libooyo iyo Dadaab ee ismaamulka Garissa, waxaana gaarigii ay wateen la kacday miino dhulka loogu aasay, waxaana halkaasi ku nafwaayay 11 askari. ilaa iyo haatan lama ogo ciidda weerarkaasi qaaday. arrimahaasina waxaan ka waraysanay xildhibaan Maxamed Daahiye oo deegaanka Dadaab laga soo doorto. bashkas jug soo dhacay ayuu u warramay.
shalay goor galab dambe ay tahay ayaa qarax ku dhacay gaari ay wataan askar Kenyaan ah oo hawl shaqo u socdeen waxayna ka dhacay meel u dhaxaysa Lagooyo iyo meesha la yiraahdo Dadaab waxaa ku nafweeday 11 askar oo askarta la dhaho General Service Unit ama GSU ka socdaan gaarigana meesha ku burburay waxaan rabaa aniga mudanihi meesha laga soo doortay oo mas'alaha deegaanka Dadaab waxaan rabaa dhammaan inaan tacsiir u diro eheladii iyo qoysaskii ay ka dhinteen askartaas oo hawl qaran ku jireen runtii geerida waan ka xunnahay waxaana geerida fuliyay gacan ka gadara badan madaxa booliska dalka Kenya ayaa wuxuu markaas soo saaray baaq marka in meeshaas iyada laga dhigi doono goob ay ka howlgalaan ciidamada booliska si loo raadiyo dadkii ka dambeeyeen arrintan Bashir horta taas waan waxba kama qabno runtii waa falfool xun dad baan arrinta fuliyay dawladana waajib weeye inay dadka raadiso meel alla meesha galaanbo laakiin waxaan ayadana ka digahayaa dawladda howlqabadka ay qabanayso inay ku subiso si ku saleysan sharciga iyo nidaamka shacabka meesha joogana aan lagu xadgudbin dawladana ay isku daydo inay hesho war saxiix ah si macnaha dadkaasna lagu soo gacan geliyo shacabka meesha deganna ay waxba u gaarin waxaan kaloo ku daray goob dibka uu ka dhacay waxay ahayd meel duur ah oo magaalo aan u dhaweyn runtina deegaanka Dadaab iyo Lagooyo way sheegeen nimankaas inay wadanka soo galeen warkaana waa laga warharay dhibaatada maartay ka dhacda wadada u dhaxaysa Lagooyo iyo Dadaab waa mid soo noqnoqotay askar badan ama naftooda ku waayeen madaxa booliska dalka Kenya sida uu sheegay meesha iyada markaa in laga dhigo goob maartay dagaal camal taas idinka seebaad u aragtiin goob dagaal macnaha oo ma aragna inay sida lagu wajiilaha ay tahay sababtoo ay tahay dhacdooyinkan oo kale waxay ka dhaceen Wajeer Mandera iyo Garis ilaa Lamu runtina annaga waxaan aaminsanahay sida loola dagaali lahaa nimanka falka ka dambeeyaan waxay ku wajahan tahay askarta nafteeda inay lugayaan oo gawaaridan ay raacayaan ay iska ilaaliyaan khaasatan waqtigan roobka oo jiro sababtaas gawaaridii ay wateen yaa ku noqday madaga dili lahaa waxaan kaloo oo dawladda aan leeyahay jidka hadda u dhaxeeyo Dadaab iyo Lagooyo hadda wuu xiran lama mari karo gawaarida waxay maraan wada kale wareege wadooyinkana waa wadooyinka lagu beegsanayo waxaan leeyahay jidkaas laftiisa hadii la hagaajin lahaa dhibaatooyinkan qaraxyada oo askarta badan iyo shicibka ay ku dhamaadeen waa laga nabadgeli lahaa waxaan ku dari oo ayadana arrinta ayada xal lagu gaari karo wadankan Soomaaliya iyo Kenya borderkiisa dawladda Kenya waxay tir wuu xiran yahay laakiin run ahaantii borderka ma xirno waxaa soo galaa badaaca iyo dad iyo wax kasta waa soo galaa ayagoo maraan wadooyin kale oo Bermude askartana badana kol waxay raadinaysaa gawaaridaas ay wadanka si sharci darro ku soo galeen naftoodana khatar weyn bay sii galaysaa marka waxaan dhihi lahaa dawladda Kenya borderka u dhaxay Kenya iyo Soomaaliya meelaha loogu talagalay inay dad iyo badarba ka soo galaan in la furo si macnaha aysan ku dhicin falalka hadda dhaceen oo kale xildhibaan maxamed daahiye oo bashkas jug soo dhacay uu warramay ayuu kaasi ahaa ciidamada Turkiga ee xulafadooda ayaa waxay waqooyiga Suuriya ka qabsadeen dhul badan xilli qaramada midoobay ay sheegayso in ka badan 130,000 oo qof ay ka qaxeen guryihii dhanka kale boqolaal qoys oo kamid ah dagaalyahanada ururka la baxay dawladda Islaamiga ayaa waxa ay ka baxsadeen xero ay ku noolaayeen dad soo barakacay oo ku taala waqooyiga Suuriya kadib markii Turkiga uu duqeeyay goob halkaas u dhow Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa arrimihii u dambeeyay isku soo duway soona jeedinaya xerada qaxootiga Ceen Ciise ee ku taala waqooyiga Suuriya waxaa ku nool kumanaan qof oo ka soo barakacay dagaalka Suuriya daashaday waxaana dadkaasi xerada ku jira kamid ah 800 oo qof oo xiriir la leh ururka isku magacaabay khilaafada Islaamka kuwaasi oo ay haatan Kurdiyiinta sheegayaan inay dhammaantood baxsadeen kadib markii uu dagaal ku qaaday Turkiga goobo xeradaasi u dhow inkastoo halkaasi haatan ka jiro khalalaas aad u xoogan haddana ma cadda halka ay aadi karaan qaxootigaasi la sheegay inay baxsadeen haddii la xaqiijiyo Kurdiyiinta ayaa markii horeysay ka digay inaysan xerooyinka ku sii hayn karin dagaalamayaashii ururka Daacish iyo qoysaskooda ee gaaraya kumanaan kun ee qof iyaga oo sabab uga dhigaya gulufka uu Turkiga ku hayo deegaanadooda Saalix Muslim waa afayeenka xisbiga PYD oo dhanka siyaasadda u qaabilsan dagaalamayaasha xisbiga Kurdiyiinta YPG waxaana BBC-da u sheegay inuu aaminsan yahay in Turkiga ujeedkooda weerarka uu ahaa in xubnaha ka tirsan ururka Daacish xabsiyada laga sii daayo hagaag maleeshiyaadka la baxay dawladda Islaamka hal xabsi kuma ay jiraan oo goobo kala duwan ayaa loo qaybiyay marka Turkiga waxay isku dayayaan in ay tagaan xabsiyadaasi oo ay maxaabiistaasi sii daayaan
marka waa halis weyn haddii ay midaasi sameeyaan. waxaa filaya in ujeedka weerarka uu yahay in la sii daayo xubnaha maleeshiyaadka Daesh. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay in Kurdiyiinta ay yihiin koox argagixiso ah, isla markaana Turkiga ayaa haatan sheegaya inuu doonayo in gudaha Suuriya uu ka sameeyo goobo ammaan ah oo gaaraya 30 kiiloomitir oo isku wareeg ah. xukuumadda Turkiga ayaa sidoo kale qorsheynaysa inay dib u dejin gudaha Suuriya ugu samayso in ka badan 3 milyan oo ah qaxootiga reer Suuriya ee minka Turkiga ku sugan. go'aankii madaxweyne Donald Trump ee ciidamadiisa kaga soo saaray Suuriya ayaa waxa uu horseeday in dowladda Turkiga qaado talaabo military. xogaga Kurdiyiinta ee YPG ayaa ka samaystay bariga webiga Furaat ee waqooyiga Suuriya dhul maamulkiisa ay u madax bannaan yihiin. dagaalka uu Turkiga ku qaaday waqooyiga Suuriya ayaa galay maalintii shanaad, waxaana jira walaac xooggan oo laga muujinayo khasaaraha iyo dhibaatada la xiriira weerarkaasi, iyadoo xukuumadda Ankara ay sheegayso inay ciidamadeeda la wareegeen magaalada Suluk ayna gulufkaasi ku dileen ilaa 500 oo askari oo ka tirsan dagaalamayaasha Kurdiyiinta. cabdiqaadir yuusuf aad baad u mahadsan tahay. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. hagaag haatanna Muqdisho. erigeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswan ayaa cambaareeyay weerarkii madaafiicda ahaa ee maanta lagu qaaday xarunta qaramada midoobay iyo AMISOM ee magaalada Muqdisho ee loo yaqaano Xalane. war-saxaafadeed uu soo saaray ayuu Iswan ku sheegay in saacadda Muqdisho markay ahayd 1:15 daqiiqo uu dhacay weerarkan madaafiicda ah ayna ku soo dhaceen gudaha xarunta qaramada midoobay iyo AMISOM gaar ahaan qaybta tasiilaadka ayna ku dhaawacmeen dhowr qof. ergeyga ayaa sheegay inuu aad ula yaabay ficilkan argagaxa leh ee lagula kacay shaqaalahooda kuwaasoo shacab Soomaaliyeed kala shaqeeya arrimaha samafalka iyo dhismaha nabadda iyo arrimaha horumarinta. wahagaag aan Facebookga u galo maxamuud warsame gabilay buu joogaa wuxuu yidhi weerarka lagu qaaday ciidamada ka tirsan AMISOM ee halkaasi jooga waxa aan leeyahay waxay muujinaysaa in ammaanka Muqdisho uu weli ciriiri ku jiro. wahagaag qodobada soo socda waxaa ka mid ah wadooyinka Mandheere iyo Wajeer u dhaxeeya oo xiran balse haatan dalka Japan aan aadno. dowladda Japan ayaa in ka badan 100,000 oo howlwadeennada samaynta ah iyo askar waxay u daadgureynayaan deegaano ka tirsan dalkaasi si ay isugu dayaan inay soo badbaadiyaan dad ku xayirmay daadad iyo dhulgo halkaasi ka dhacay kadib markii dalkaasi uu ku dhuftay duufaantii xooganayd oo la sheegay in sanado badan ay dalkaasi ka dhicin. ugu yaraan 18 qof ayaa la sheegayaa inay halkaasi ku dhinteen 10 kun oo kalena way ku dhaawacmeen. waxaa kaarada jabsaday dhowr webi oo ku fatahay ugu yaraan 14 deegaan. cabdiraxmaan xaaji cadow ayaana warkaasi inoo haya. duufaanta Hagibis ee ku dhufatay dalka Japan waxay dhulgo ka geysatay koonfurta magaalada Tokyo. duufaanta oo maanta axada gaartay waqooyiga dalkaasi waxa ka dhashay roobab sababay daadad. warbaahinta dowladda Japan waxay sheegtay duufaanta Hagibis ilaa iyo hadda inay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof iyadoo 13 qof oo kalena weli la laayahay. waxaana guryahooda inay ka baxaan lagu amray dad ka badan 7 milyan oo qof halka ay dad ka badan 50,000 oo qofna ay ku nool yihiin xerooyin meel gaara. xukuumadda Tokyo deegaanada dalka Japan ee ay duufaanta ku dhufatay waxay ka howlgelisay 20,000 oo askari oo gurmad degdeg ah bixiya. waxayna ciidamadaasi ka howlgaleen bartamaha gobolka Nagano oo ay dad badan biyuhu go'doomiyeen. waxayna ciidamadu adeegsanayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarka. ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe wuxuu sheegay haddii loo baahdo in ciidamo kale la howlgelinayo. wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Japan waxay digniin ka bixisay roobab xooggan oo ku soo wajahan caasimadda Tokyo iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid ah. Yasushi Kajihara oo ka mid ah wakaaladda wuxuu sheegay deegaanada ay duufaanta ku dhufatay inay waxyeello aad u weyn u geysatay. waxa uu roobku u da'ayay si xawli ah oo aynan weligeen arag. waxay u badan tahay in deegaanada dhulgo uu ka dhaco daadadkuna ay ku fatahaan in goor horeba ay musiibadu ku dhacday. waxaana qasaba in tallaabo la qaado si loo badbaadiyo nolosha dadka halkaas ku nool. xaaladuna haatan waxa ay taagan tahay heerka 5aad ee feejignaanta. daadadka duufaanta Hagibis ka dhashay waxay sababeen inay 7 webi ay fatahaan iyagoo guryo ka badan 400 oo kun ay koronto la'aan noqdeen. Andrew Higgins oo ah macallin ku nool Tujigi ayaa ka warramaya waxa uu indhiisku arkay. banaanka ayaad eegaysaa oo waad baxaysaa durbadiiba roob ayaa bilaabanaya kadibna si aadan filayn ayaa waxaa kugu imanaya dabayl xooggan oo aadan garanayn meesha ay ka timid. isla markiiba waxaa qasab kugu noqonaysa markaas inaad dib ugu laabato gurigaaga. anigana nasiib wanaag
gurigayga waxa uu dhisan yahay qaab loogaga badbaadi karo duufaanta marka gudahan galay oo dariishadihii ayaan xiray meel kasta oo dabaysha ay kasoo geli lahaydna waan iska xiray si aan dabaysha uga badbaado hase yeeshee xitaa markii aan xiray dhammaan goobihii ay dabaysha kasoo geli lahayd gudaha guriga ayaad ka maqli kartaa oo aad ka dareemi kartaa dabaysha waaba sida tareenku gudbaya oo kale waxaana gebi ahaanba la joojiyey tareenada iyo diyaaradaha dalkaasi isaga gooshayay duufaanta hagibiis ee dalka jabaan ku dhufatay ayaa lagu sheegay inay tahay tii ugu weyneed oo muddo 60 sano kadib ku dhufato dalkaasi. maasanid cabdiraxmaan haatanna mandheera waxaa maalinkii shanaad go'aan wadada weyn ee isku xirta deegaanka wajeer iyo mandheera ee gobolka waqooyiga bari ee dalkan kenya halkaas oo ay ku xaniban yihiin gawaarida xamuulka iyo basaska u kala goosha deegaanadaasi haddaba saamaynta ay amuurtaasi ku keentay ganacsatada labada magaalo waxaan weydiinay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada mandheera degan magacaygu waxaa la dhahaa kiiman yarow qaasin waxaa jira wadooyinka go'on ilaa maantadan kutulo go'oday halkaas aad gawaarida ku istaageen kutulo waa xiran tahay kutulo wajeer kutulo mandheera way go'on tahay wadadan kale lafeey ili mandheera dhexdooda taa mataatuudi caanaha lagu soo xiray maanta la saddex maanta la laba mi imaanin oo garjimihii bilcaanta oo garjimihii caanaha la wada maaragtay u wada yeelo oo waxay ku xirtaan ay leeyihiin wadada way go'on tahay way go'day ilaahay wayna waaxid unbaa wax noo qaban karo horta dawladdu waxay qabanay ma walaha wadooyinkana dawladda wadada inta dhiman aad dhimaystirta hana dhisa magacaygu waxa waay Caraab Maxamed Mukhtaar waxa waay suuqa qaadka dhibaato weyn ayaa ka haysata dhibaatada hadda haysa waxa waay in ilaa dhowr bari ayaan imaadin jaadki oo ku xirantay wadadii masaakiinta ku nooleed ay yani si rafaad ay ku nooshahay oo u baahan tahay xitaa dawladda inay musaacado u fidisa hadana dadka musaacado lala gaarin qatar ay arintooda ku sugan tahay roobka haduu sii socdo waxa waay waa dhibaato weyn ayaa ka imaadaysa county Mandera hadba wadadii ilaahay noo furunta ayaan marayna anaka wadan noo go'on ma lehen waxaan soo maraynay dhanka kutulo waxaan soo maraynay ilaa taagaabay baansi dhulkaas kulli wadooyinka oo dhan way go'een dawladda waxaan ka codsanaynaa inay musaacado degdeg ah la soo gaarto diyaaradda calaajbaag waxay qaadataa gaari wuxuu qaataa 2500 diyaaradda waxay qaadanaysaa 15,000 calaajbaag marka waxa waaye baag ay ku jirto ama 20 ama wax limit ah isma bixinaysa mana laga awoodo diyaaradda ma awoodaa masaakiin waay mana bixin karaan lacagtaas anoo ah jamanka ururka ganacsatada Kenya National Chamber of Commerce Mandera roob haduu imaado tuuga socdo wadooyinka dhiiqay noqonayaan oo la kala xirmaya alaabtii ma imaanayso marka dhibaatadaas way jirtaa dibba jiro baabuur badan ma soo gelin tuugiya socdo way xiran yihiin marka dhibaatadaas way jiraan dawladdu waxaan baqa u dirayaa maadaama ay dawladdii ummadan inay wax u qabato ay tahay muddo 50 sano aan go'doonkan aan ku jirnay inay dhibaatooyinkan wax ka qabtaan dhibaatadan waxa loo talagalay dawladda canshuuraad ay gurayso inay shacabkeeda ka danqato oo sidii isku dhaxmarkii ama wadooyinkii ay u furmaan inay ka dadaasho oo dhaqaale ku bixiso hadda hadii ay ka gaar wayso wadadii maahayeeday oo weyn inay meelaha toogaga ay had hagaajiso sida aan ugu baxano dhibkan hadna haysto insha Allah waxa la dhahaa Maxamed Axmed oo ka shaqeeya muddo ka shaqeynaya basaska Mandera siba baska tawakal bas hadda waqtigan la joogo dhibka jira waxa waaye roobab oo xoog loo lixad la dhacay roobkii waxay gooyeen wadadii ay gooyeen wadadii oo meelihii oo laga hii hadda dhinaca kala oo wadadan oo marta wajeer ilaa Gaarisa iyadana meel laga suuray la dhaho laba kutro dhaxdooda ahaa goon oo biyo wado qaar ka mid ah ganacsatada Mandera oo ka warramay saamaynta ay ku keentay wadooyinka kala xiran markana adoo tagay oo inacay astaan waxan baad ahayd adduunka qof baad ahayd aaminay oo aan jeclaa ixtiraam badan baad lahayd akhlaaqdaada wacnayd kartina waan kugu ogaa aqoon darashaad lahayd udub karjadaad ahayd aayaha noloshaad lahayd haddaad si aroosatood hablaha tii ugu mudnayd adigu saydeeda tahay iyo tahay oorida anigu duca kuu huray adduunka intaad jirtaan rabbigu awlaadsan iyo allow gabdha iyo inama uurkiina ku beer carood waa gabar wiilkay jecleed intuu ka tagay kadibna gabay jeceela ka dabageysay way soo socotaa sheekadaasi ha iga tegina haatanna Boosaaso wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta gelinkii hore halkaasi lagu xiray siyaasi Muuse Cali Jaamac Muuse ayaa dhawaan wuxuu ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah dadka deegaankaasi kaasoo lagu dhaliilayay xukuumadda Puntland ee uu hogaamiyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni booliska gobolka Bari ayaa xiray ninkan waxayna ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ah ka bixiyaan hase yeeshee waxay ballan qaadeen inay saxaafadda la hadli doonaan arrimahaasina waxaan ka waraysanay
axmed cawil jaamac dhangad wariyahayaga puntland cagayarow ninkan saaka ayaa lagu xiray saldhigga dhexe ee magaalada boosaaso waxaa lagu magacaabaa muuse cali jaamac kadib markii ciidamada booliisku ay ka qabteen magaalada dhexdeeda sida ila ku dhow ninkaasna ay sheegeen waxa uu ballan uu ku lahaa wasaaradda amniga xafiiskeeda gobolka bari oo uu ballan uu ku lahaa sida ilahan ay caddaynayaan axmedow marka ma la ogyahay sababta ninkaa loo xiray ilaan waxaan ognahay in dad kale ay kula jireen shirka cagayarow ninkan horta waxa uu ahaa ninka akhrinaya war-saxaafadeedka ka soo baxay waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka bari ee magaalada boosaaso ku shiray oo ka hadlayay tabasho ay ka qabaan dowladda hadda jirta ee Saciid Cabdullaahi Dani uu hogaaminayo marka sababta lagu xiray biliiska haddaan weydiiyana waxa ay sheegeen in arrimo amniga la xiriira ay ninkan ay ku soo xireen hase yeeshee si rasmi ah loolama aysan hadlin balse waxa ay caddeeyeen saraakiil ka tirsan booliska oo aan la hadalnay in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan xarigiisa balse hadda xariga ay xireen muuse cali jaamac uu yahay arrimaha amniga la xiriira inay u xireen waxaana jiray cagayarow maalmihii lasoo dhaafay in guddiga amniga gobolka ay soo saareen war la xiriira in magaalada boosaaso aan lagu qaban karin shirar inkastoo hay-adda xaquuqul aadanaha ee puntland u dooda ay arrintaasi ka hortay waa tahay marka muuse maxaan ka naqaan muuse waa siyaasi inta badan la tilmaamo inuusan la gaban afkaaraha uu qabo waxaana uu inta badan uu yahay nin daliilaha uu soo jeedinaya si cad u sheega muuse dadka yaqaana waxa ay ku sheegaan inuu yahay nin afkaarta uu qabo si toosa u sheega marka arrimahan maalmihii ugu dambeysay laga hadlayana waa mashaariic gobolka bari la sheegay in dowladda puntland ay ka fulinayso oo waxgaradkani ay dhaliilayeen oo ay ku sheegeen in imaaraadku aysan fulinayn mashaariicdaas وهاجاك أحمد عوي أيو كاسيها عدفتها عغير أيو مرميي بل وراركي أدأتكا أن كان نصنع قصة جعيلة أو حنون بدن أيان إذن هيا أيان أحمد عيديد أو مانسايين كترسة أي يكون عضي ويل أي وذا السعودين أي إسعال فنوايين يانا إذن كدلين أن إذن كو وريجيو فهذا ما تحدر أو قمد أسي وريستي أكتادا نقول على إنا نفك تشوب أبد هيا شيء ما أحان حلية أدب بوجهي قرارك على دقنا حلية دادا على يشو أدب هرتلوغو كلا نسيب بدايا كاوحانا هذانو انت بدان مركا حلية دادا على يمادو dadka ku nasiibka xun baan ku jiraa marka muddo wiil wada soconay marka wiilka 3 sano marka wada soconay ma kala hadnay hay sababtu maday ka timisay isaga dare ma waxay ahayd markaas arrimo dhexdeeda ah oo isku afgaran weynay marka qisadaas saas ku timi ugu saameynta badnay taas ahayd waatay taas maxaad ka tiri marka ayaan taas waxaan ka iri ma soo yaro kooban oo ah xubbiga adiga ay baray adaa ii furay indhaha abuuri kala gacalka jira أنا قرني جعيل عياد تستوى أنا الكم في حد يدري أردت واجان أحين سكول كنا وذا تبوا إسراع أرور كستبوا حديث وقرتان إلا عمتي حياة كي حسوسي أكتر هذا نقول على إنا نفك تشوب أبد هيا شيء ما أحن حلية أدب بوجهي قرارك على دقنا أسبوع واحد الحين أيام قارنو أحد سنين تمركب بحذاء وحيس أيام محس هبين كستو سلاسة بنسألك تني ما دام ما نسلاسة نسبرن هاي دبلا عقبة إحلي أباري halka qalbiga isfahan bay ku dhacay go'aan qaadaan sida baabka jacaylka laab dooqa iga baahi gabi gayanko idil dhamaan adunba igu mudnaaniyad ku oomanay waxa la yaabaha sidaan u ilaawo ruux tago ayar qura ku daadana aan u tago adoo tagay oo inacay astaa waxan baadahay adduunka qof baadahay aaminay oo aan jeclaa ixtiraam badan baadahay akhlaaqdaada wacnayd kartina waan kugu ogaa aqoon darashaad lahayd udub karjadaad ahayd aayaha noloshaad lahayd haddaad si aroosatood hablaha tii ugu mudnayd adigu saydeeda tahay iyo tahay oorida anigu duca ku furay adduunka intaad jirtaan rabbigu awlaadsan iyo allahu gabdha iyo inama uurkiina ku beer caroor wow marka gabar kale ku guursaday miya inanka gabar marka mid kale maqneen inanka ku guursaday sidii baan ku macsalay way adag sahay in qof aad jeclayd oo muddo dhan xasaawi iyo xiriir jacayl ka dhaxeeyay haddana intaad kala hadheen oo gabar kala guursaday in qofku uu u hibeeyo sugaan duco iyo isku jirta amaan marka waad mahadsantahay isaga muxuu arintaasi markaad u tirisay muxuu ka yirina si uga falceliyay isaga wuxuu uga falceliyay
in xitaa ay macquul noqotay inuu soo noqdo isaga oo dee marxaladaas soo maray noloshaas kadib haddana nolosheedii uu dib ugu soo noqdo laakiin waxaa jirta mar haddii qofkii dhowr sano ama muddo la kala maqnaado way adag tahay in dib layskula qabsado waa macquul in nolol kale iyo waxyaabo kala dambeeyaan laakiin anigu saasan ku nabadgeliyay ku duceeyey xidhiidhadeedii taliya hawsheedii kale baana iska sii watay oo dee sidii baan kusii watay waxaa jirtay maanso aad u caanbaxday oo dhalinyaro kale xitaa wiilala isku dayayaan bal taas maxay ku saabsanayd nooga sheekee erayadaasi oo eraya waxay ahaayeen marka qof aad jeceshahay aad weydo waxaad isku dayaysaa inaad dad badan oo kale aad barato marka dadka kale isma fahmaysaan maalinba mid baad la hadlaysaa marka haddii aanan qaldanayn maanso kooban bay ahayd oo markaas aan anigu dareen ahaan ku cabirayay oo ahayd nina kaaba iyo keli uma ihiyo toddobaadbakii igu soo kordhaan ku idhaacdaan dadka kuu jecla adigaa kasmara kumanaan ka roon adigaan ka shiyo kugu dhiga qalbiga ayahoo kalgaca xiisuhu kolkaba waa kii guree kolka uu yarta ku kalaan bartaa kana waa sidii oo kama wacnee judhaasaan karxaa bilo kooban baan ku qof soo maro kulli way tageen koona ima hadhin waa doqduro kale waa garti adiga oo kale qofkaad rabtay inaad nolosha la wadaagtid weli wax ma ka samaysa noloshu way isbedbedelaysaayoo markan arrimaha jacaylka aad dibadda ka joogtana wax qurux badan baad sawiranaysaa markaad arrimihii jacaylka aad gudaha usoo gasheed weydana wixii way isbedelayaanoo nolosha tanaasul fara badan baa imanaya marka waxaa laga yaabaa haddaad jecleed wax qurux badan oo nin qurux badantood jeclaatay aad weydo waxaa laga yaabaa quruxdii marka dambe inaad ka xanaaqdo markaa sababtaas taanan weli u cabirin laakiin nolosha markii hore waxaan jeclaa iyo hadda way isbedeleen ayaan axmed ciidid ayay taasi ahayd anna erayadii halkan ay ka sheegtay waxaa i soo jiitay erayadan adoo tegay oo i nacay astaan wacan baad ahayd adduunka qof baad ahayd aaminee aan jeclaa ixtiraam badan baad lahayd aqoon dhalashaad lahayd aayaha noloshaad ahayd wah waxaa kaloon xasuustay waa haddii markay halkaa maraysee heestii mahiigaan ee qadradda hircige idaacadiina waa naga intaasi qadradda hircige iyo heestii mihigaanaan idinkaga tegaya waa anigu xatoosha idin la nabadgeliyo ma maqanahay ma jooga ma mirkacay ma nagay